فوائد الحديث عن اليوم الآخر أركان الإسلام كركن كبدة وأرمين آخرة يكشاكين تيدا حسوسين تلس حسوسيو مالين كاي سجا إن رميسنتها وعمل فليس حسوسنتها فإذا ينتظرها كتير يستلتها إن شاء الله maalin ka rumayntiisa maxaa faa'iido ay ku jira in la isku wacdiyo in qalbigaaga ku jiro oo aan idin laawin aad xusuusan tahay faa'iidada u horeysa waxa weeye yuhyi fi nufuusil mu'miniin macaani as-sabr wal-ridha wal-ihtisab qofku markuu aakhira rumaysan ku qanacsan yahay ee geedi u yahay waxa uu aaminsan yahay sabirka wixii dhacwana ilaahay uu ajri kaga doonayaa isku mid ma aha qofka aakhira rumaysaniyo iyo qofka aan aakhiri liiska ugu jirin imtixaanaadka ka dhacaya adduunyada aad bay u kala duwan yihiin waxa uu isku dayayaa qofkan ashahaadanaya islaamka hay dhibaatada adduunka ku soo martay inuu ka macaasho ka faa'iideysto sidoo axadu aclaami salaf lahaa macaashka iyo ajrigaanu ka helayno camalka saalixan naguma fille musiibadana waa ka macaashnaa إلهي بايري إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذلك الصبر يبكى الدنيا إلا هو مال امتحانه إن أول بقفك والله امتحانه يقفك كل صبره إلهي سبر كذا ولا ما يستري يا با أجري كذا ولا ما يستري يا با إلهي سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وحاوت المامي قفك مسلم كاهي لبي يدف بوحي أدونك صامر وكم عاشا يا عجبا لأمر المؤمن حديثك صحيحة إن أمره كله خير وحو لا صبر بأدونك وكفاية سنية يبقى وكو صبر أجر بويه نعم الله وكو مهضنق أجر بويه وليس ذلك إلا للمؤمن أن انت قالكم لها مؤمن كن عليه وأنا وحو كفاية رمينت آخر رميسي يوصي صعوة لكن أصحاب الدنيا وعبات الشهوات إذا أصيبوا ببلاء أصابهم الجزع والهلع الماء الدوية لمنك الله يراك على ضع يا إيمان الله وياش وحيار ما تخيستا ووالا يساعد الدوية مركا وحيار أركاه وهذه أركا يو لمنك لها نوكليير بانو هاي السنة وحقحية إلي مقبط وحانش قبنا إنه فايرس يرى أي قحية مركا وحكا لا يو أركا ينمجر أنا هين أدون كان وحكا ضنبايا أركا ينمجر هذا شيء عجيب بدن إنه mararka qaarkood waxa laga yaabaa dadku hadii wax la sheego inay raashinka iyo biyaha iyo waxa ku yuu galaan iyadoo taasina aanay sax ahayn oo dadka kanaantii ay ka mid saaqadii ilaahay waa taala wax dhibo jira ma jiro marka hadii halacan iyo argagax faraha badan waa dhaqanka shisheeyaha iyagu taa way sii dhaafeen waxaan arkay Mareykanka ku yuu loogu jiro meelaha qaarkood in hub la iibsado bal adigu ajaayibka ah hubka waxa loo iibsanayaa talo fayraska lagu leynayaa maya waxay ku leeyihiin lahubku waa xoro waa laga iibsadaa dukaamada waxay ku leeyihiin haddii fawdadaasi dhacdo oo la isboobo dadka saan isaga celin lahay acsaabtooda kacsani waa taaka kanaanta iyo iska celinta faa'iidooyinka waxaa ka mid ah rumaynta maalintaa la rumeeyo ama xusidaynu xusayno ee inaan ilaaweyn yuxyi fi nufuusi macaani alcaf عن الظالم وقبول الأعذار waxay sababaysaa dadku inay iscafiyaan cudur daarka iska aqbalaan cadiyad iyo deeqda isugu roonaadaan isu tanaasulaan ay qofku wuxuu leeyahay wixii aad dadka u dhaaftay iyo waxa ila agtiisa dhigatada ilaahay baa ku siin doona aakhira soo socoto saasa ilaahay ku amaanay dadka muuminiinta inama nud'imukum liwajhi illahi la nuriidu minkum jazaa'an wala shukura إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وضدك مسلمين تهاي ومدي وصم الفلايا آخرة إلهي وأبال دقنا ينا إلهي وألقى أبال مريم